waxaan rabaa waxaan laga baran in aan ka hadlo sidaad ogtihiin sool waxa ka socdo kacdoono looga soo horjeedo halaqyada iyo dhiigmiiratada dhibaateynaya marasta degta dhulkaas waxaan rabaa inaan daraawiish la hadlo dadka u dhow ee walaalahood ahna inaan la hadlo sida harti waxa idin sheegayaa daraawiishay 100 sano ka hor dadkii aad xoreynayseen in ay maanta idinka aad iska xoreysaan oo xornimo aad u carartaan waa wax idinku aad gasheen waxa idin sheegayaa daraawiisha daatihiin shalay markii halyeeyadiina lagu ag cunayaa daawanayseen maanta ha sii daawanina halyeeyadiina iyagoo la dilaayo la baabi'inayo umad haddii la rabo in la baabi'iyo geesiyadooda la dilaa kadibna ayagaa la cunaa haddaad daawataan halyeeyadiina oo leedinka dilo ogaada beritoole marastiina eeyaha ayaa wadada ku cuni doonaan si ayna taas u dhicin maanta dagaalka aad gasheen iyo ka dhiidhinta waxaan idinku bogaadinayaa in aad sii wadaan ilaa aad ka xorowdaan halaqyada qof allaala qofkii doono ha kaga xumaado hadalka aan dhahayo laakiin waxaan ku faraxsanahay oo aan taageersanahay in maanta uma Soomaaliyeed ee dib lagu haayo in ay ka dhiidhiyaan ay soo istaagaan kama duwana al-shabaabka koonfurta Soomaaliya dadka ku gooracda kama duwana maamulka meesha ka jira ee dadka kiskista halyeeyadooda u dila hadduu dhiig daraawiish kugu jiro hadduu dhiig walaalahood uu kugu jiro harti ahaaw cidda doonta ahaaw dadkaas maanta xornimo u istaagayna hal xoreeyo waxaan la hadlayaa mas'uuliyiinta ka soo jeedo ee Soomaaliya joogo ayaguna waxaan leeyahay dadkaaga intii lagu hordili lahaa beritoolna aad dan u aadi lahayd maanta waad awoodaanay intaad fariintooda qaadaan madaxda Soomaaliya gaarsiiya dawlad ha loo dhiso gacmahooda ha ku istaagaano halaqyada iyo dhurwaayada cunaayana ha laga dhiidhiyo mid kale aan la hadlayaa dawladda Puntland oo iyadana hadal kaliya meesha la taagan waxaan u sheegayaa dawladda Puntland iyaduna inay ka dhabayso dadkaasay gooni isku taagooda iyo dagaalkooda waxa loo haystaa waxay tahay shalay dad waxa ay diidi jireen maanta dadka ku haayaan ha laga dulqaado waa iga talo daraawiish maanta way kacday 100 sano ka hor xornimada aad raadiseen aad maanta raadinaysaan ha u joojina horana ha loo sii wado dhurwaayada iyo halaqyadana ha laga hortago halgankuna yuusan halkaas ku ekaanin waa mahadsantihiin habeen wanaagsan